حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا. qisadani waxa ay ku dhacday wiil dhalinyaro ah ee fadlan hooyada darteed u daawo kadibna faafi. waxa uu yiri wiilkani waxaan ku jiray waqtigii qaangaarka ama shabaabnimada, waxaan aad u jeclaan jiray banaanka, waxaan necbaa inaan guriga joogo. balan ayay ii dhiibi jirtay, waxaan ku soo laaban jiray guriga habeenkii waqti dambe. hooyo aad ayay ugu qaylin jirtay, waana dhibsan jiray hadalkeeda. ayadana walwal iyo hurdo la'aan ayaa ku dhici jirtay. anigana waxaan iska ilaalin jiray in aan guriga ku laabto ilaa ay ka hurdo hooyo. waxay gaartay heer ay iska seexato, laakiin warqad ayay ii qori jirtay oo ay igu dhejin jirtay kushiinka hortiisa, taasoo ay ku qoran tahay cuntada meesha ay ii taalo iyo nuuca ay tahay. waxaan saas ku socdo oo habeenkii iska wareegayo, maalintiina isku hurdo, heer waxaan gaaray hooyaday xataa ay warqad iigu soo qorto dharka kaa wasaqa ah ee ii soo dhig banaanka si aan kugu dhaqo subaxii. sidii uu xaalka sidaa u ahaa ayaan habeenkii waqti hore guriga ku soo laabtay, mise waxaaba ii dhegsan warqad ay ku qoran tahay in aad la igu baahan yahay. laakiin waqti aan ku sii aqriyo ma haynin oo hurdaa i haysay. banaanka ayaan ka soo casheeyey oo cunno uma baahnayn. sariirta ayaan toos u tegay anigana oo aan aqrin. waxaan hurdaaba subaxii ayaa waxaa ii soo galay aabbahay oo oynayo. hurdadii ayuu iga kiciyey, wuxuuna dhahay hooyadaa way dhimatay ama way geeriyootay. waan ooyayey ilaa laga duugo, waan ku dheganaa, laakiin maxay taraysaa markay dhimatay kadib ooyin. aaskii kadib waxaan ku soo laabtay guriga, waxaan ku aruuray sariirta, murug iyo naxdin iyo shalayto ayaan galay. laakiin si degdeg ah ayaa waxaa igu soo dhacday warqadii aan ka seexday xalay, aniga oo aan aqrin hurdo darteed. waxaan aaday kushiinkii, waan soo qaatay, waan akhriyey, waxaana ku qornaa hadal ka duwan kuwii hore oo ay hooyo guriga haddaad ku soo laabato i kici, waayo waxaan dareemayaa xanuun si aad isbitaalka igu qaado. oohin iyo murugo aan xad dhaaf lahayn ayaan galay. walaal, waalidku waxay nagu leeyihiin ixsaan inta aanay dhiman, ee aan wanaajinno sida aan ula dhaqmayno. أمي يا حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا. يا شمسا تشرق في أفقي وردا في العمر شذا. ماذا أتذكر يا أمي؟ لا يوجد شيء أنسى، فالماضي أحمل أزهارا والحال